madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan uu noqon doono mid sii socon doona. waxa uu cad ku maray in ay u diyaar garoobi doonaan sidii ay duulaano ka dhan ah al-shabaab uga qaadi lahaayeen. waxaanu sidaasi ku sheegay maruu maanta kormeer ku tegay deegaanada Sabibiya Caanoole oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. taliyaha ciidamada qalabka sida Soomaaliya Sarreeya Gaas Aadan Cilmi Indha Qarshe oo qoraalkaasi ka hadlay ayaa yidhi sharaf bay idin tahay in madaxweynuhu idinku soo booqdo idinkoo difaaciina hore iyo bartii hore jooga. runtii waa wax markasta aan la heli karin oo taariikha. marka waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa inaad ka dhabaysaan rabitaanka iyo waxa la idinka filaayo dhammaan madaxweynuhu idinka filaayo, annaga idinka filayno, dhammaan xoogga dalka Soomaaliya idinka filaayo, ummadda Soomaaliyeedna idinka filayso. dadka magaaladan jooga dhibaatooyin badan baa ku dhacday, 10 jeer baa unimi waa ka noqonnay, markaa ma noqonayn, lagama yaabo inaan noqono. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi bal yaan idin leeyahay guushii aad ka soo hoyseen inaad ka adkaateen cadowga ummadda Soomaaliyeed intaasoo sano soo dhibaayay, inaad ka adkaateen oo aad kaga guulaysateen oo idin babac dhigi waayeen oo ay iska kiin maxaan ku difaaci waayeen. markaad meeshaan timaadeen waa carareen soo maaha, waa dhaqankay leeyihiin. marka waxaa loo baahan yahay sidii aad magaaladan uga erideen Sabiid iyo Caanoole aad uga erideen oo aad uga adkaateen inaad u difaacataan magaaladan, shacabka magaaladan degan oo muddo dheer ay gumaysi ku hayeenna aad ka difaacdaan. markaa waxaa la rabaa inaad soo jeedaan, inaadan seexan, inaad meeshay joogaan aad ugu tagtaan oo aydan halkan ku sugin. haddaad soo jeedaan ood u diyaarsan tihiin inaad difaacdaan shacabkiinna, inaad difaacdaan, idiin soo bawac dhigi maayaan. waa fulayo, waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan, inay carruurta laayaan, laakiin wiilal idinkoo kale ah marna hortiin ma imaanayaan, mana idiin soo wajahayaan. maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo. magaaladan kama tegayno, keliya maaha waa soconaynaa, waxaan ugu tegaynaa meel kasta ay joogaan. annaguna waa idin garab taagannahay, ma maqlaysaan? annaguna waa idin garab taagannahay, waa idin soo booqanaynaa, ciidamo kale idinku soo kordhinaynaa, waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan. marna ma yeelayno, marna ma u dulqaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay, oo ay maatida iyo carruurta ay maxaan ku rahdaa ku laayaan oo hantida ku burburiyaan. ka yeeli mayno.